munaasabadan ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa guddigeeda xuska maalinta xornimada dalka Djibouti ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka socday xukuumadda Soomaaliya uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi Muuse Bixi Cabdi sidoo kale wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda warfaafinta beeraha cadaaladda iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid Faysal Cali Waraabe iyo jaaliyada dalka Djibouti ee ku nool dalkani Soomaaliland iyo safiirka dalkaasi Djibouti u fadhiya Soomaaliland safiirka dalkaasi Djibouti u fadhiya dalkani Soomaaliland mudane Xuseen Cumar Kawaaliye ayaa isaguna munaasabadan hadal la kooban ka ladiisina waxa kamid ahaa Soomaaliland mudane Ahmed Maxamuud Siiraani iyo dowladda Soomaaliland xukuumadda baarlamaanka shirkooda iyo kooxda caawa iyaguna ciidoodii 26 Juun ay madaxdoodina laga joogaan waxaan leeyahay xabad khaasatan waxaan kaloo hadda ka salaamayaa safaaradda Turkiga oo nagu sharaftay inaan lagala ciidaan caawa waxaan xaggan haddaba caawa waa habeen weyn waa habeen aan haddaan nahay reer Djibouti aan xusayno calankeedii habeenkii aan ka waroojisanay nacabkii la guumaysanay ee ka horow caawa waa habeen weyn caawa waa habeen mucaaradkeenu dayaxa iyo daruuraha la caweynayo ayay faa'iideynayo waxa ay ka dhigan tahay caawa reer Djibouti oo dhan iyo walaalahayna Soomaaliland dhammaanteen waa ciidina saddex ciidood baa isku geeyay waa in aan isku aqbaleyno waa in aan iska hadalno waa in aan isku quurno maxaa ku raadayay walaaltinimadana muujino aan wax wada qabsano oo wadajir aan noqono sababtoo ah alle ka dad isku geeyo walaalayaal anigu hadalka ku soo beelaanay caawa waa habeen علم وحلم وعمل فرحة وعمل عاوة العوين عن فرحة وعن نجوها طريقة جايلين غير جبوتي الصوماليلاند جوتا ما يتنقل صومي وسياسة والمسو أمرين مرحوينها جمهورية جبوتي إسماعيل عمر قال لي إن ما يشوف وانا معي جولاني غير جبوتي روحاني وعليه وكناوا لعملوا وعلى قبضه دلت من دلنا اللي كانوا عندنا أصلية وقت كانوا جوتي وشكل لونه وقومي لونه وذكر لونه إن الأخلاق دي هذاتية اللي كنا أنو بعد الأخلاق دي هذاتيين أنا كنا شرف ما يلا لنا ويا أخلاقنا ويا غير جبتي وإنا وأنا أريد مدكاتي وإنا دلنا ورتي شقيه وده أروح توصلتي أيام الوصول وأنا وحسيت أقول هاي أنا مدرتي هسه دعوة جوال نيجا نتيجة حولها نيجا معقول هذا يقول برضو ما إنه يقول متى إنه هو حسن إنت هذا حسن أنا نصيب هذا الشيء وأنا واحد عاوز سلام أقول هذا waxa aan maanta aan ugu hadlayo qiimaha iyo waxa aan ku leeyahay waa calanka calankaas hadduu jiro qiimo ma yeeshan reeru barqula wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Saad Cali Shiro oo weheliyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa iyaguna si wada jira halkan uga hadlay iyagoo si qoto dheer ugu dheeraaday xiriirka u dhaxeeya labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliland maalintan ballaaran ku hambaliyay shacabka iyo mas'uuliyiinta dalkaasi Djibouti hadaladoodina waxa kamid ahaa waxaan jeclahay marka hore halkan uga mahad celiyo safiirka iyo inta kala shaqeysay ee soo agaasitay xafladda aadka u wada badan eriga ku habboon waxa weeye waa hambali waxaan dadka reer Djibouti iyo dawladda reer Djibouti iyo madaxweynaha reer Djibouti aan ku hambalyeynaya sanad gudaha afartanaad ee soo wareegtay markii xornimada ay Djibouti qaadatay 1977 على عمبريو حرمها سكومي من سيني حاويري هل جنبها الواقعي نفقه الوهي انتبه الوحوي شير بها الواقعي انتي كل متي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه الحديث جنك ورابيو فهم كود الصبر كسيو انتي سوها قنتينا مدنان تايريه يجعل الله سينا
Somaliland waxay ka qaadatay qayb libaax bay ka qaadatay xornimada Djibouti kaalin weyn bay ka qaadatay maantana haddii loo baahdo kaalinta kaga habboon ayay ka qaadan doontaa xaqiijinta iyo xornimada Djibouti waxaan halkaa ka ogeynoolayay markii dadkii gudaha lagu xereeyey إلى dadku waa wax dhintay iyo wax la laayay ay ka wadeen caamud oo aan dagaal tagna ilaahay loo yaabo ardayda balkeeda ilaa iyo maxabra bulshada ilaa buraha soo qiimeeyay dadku jibada soo ahaa ilaahay wuxuu ka dhigay maanta toddobaad baadkii in xasan ku guuleysto inuu go'aamiyay isagu qabto oo gacanta soo gasho oo madaxweyne ka noqdo xasan guuleed isagu oo ka arkay وإيش على كلامه حسن قولي يا رجل ما تعالى يا واقع إيش على كلامه هرجع سوى الحمر كجارية بالنماذج وعلى الوصول إنه جبوتي إسكت كده يدور كده وفي سوالين المركز شوتين محمد زياد كمل علىها محمد شوتين واحد أول شيء قال يجي واحد أول شيء إنه حسن قولي بصوره حمل جبوتي فجأة أنتها وضع واحد من العاوة أحمد سيداي ووزير كجراسيها وحنا من عمر عرتين فجأة هؤلاء كلهم وقتها كانوا قامين حسب كل الشارع ما كان أركان إياه والله بس مش هنقوله حسب كل الخبار بقاطع وأعرف وحكومة قاطع إنه محمد سيداي رغم ما قال رمز التغيير كل هذا الشيء ده رمي هذا اللي يبي شيء كذا جبوتي حسب كل وكساري مرحلة نوعية كسارة حاجة واحد فوقين بيستن وشرعية حاجة واحد فوقين سياق بريء وشرعية ولا ضروري يقولي لما تجوا وقعوا جبوتي ما ضرير ده كسر عالم اليوم يعني وضل ومعه وأنا عالم الرياضي وضل على حال بيربط حتى نساعد حسب كل ده ويتواصلوا وجيس كلها وتوب يزوري في حاجة سوري أيوة نبتديو هي سياسة ولا كلمة هي حرب سياسة نبتدي نسعى جبتي هاي كابوس وعقول لي إسماعيل ما تجبت وحي مرة يساعد عليه نجلس كأخذ القوة إسماعيل وقال سياسة ولا سوق هذا وحي هاي إنه ماشي كحد فروق وعفرتها هاي وما كان يقصد صارت ماشي قبتها وحكم يعين يجعل الشيء وكله وحسي وصور ويا أحمد دين يدكيس تعزوك على الأرض يدك رشا ما تعيسته سؤال هذا ما حكوا عمرينا شبوت هربك جابي يا نهضة يا نبالي وهو مري هذا يقول وحمرينا وشاتي وهو مري شات هذا وهو مري برواقة سباك الزوجاري هذا يقول كل كتاب كله ويقول كل جابي دبي سبسو قريه لما تشاو سوالف ما كان سوالف هذا بدو جبوتي أو سومالي عفوا دقي وايد برواقة هذا برضه برواقين ما بنرجع سوالف بدو واجا كذي هو سوالف دب يقول ما حصل دب يقول ما نرجع سوالف وأول سبشار كله هو gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciido isaguna xafladani ka soo qayb galay injineer Faysal Cali Waraabe ayaa dhankiisa sheegay inay Djibouti tahay tusaalaha nool ee geeska Afrika. Ismaaciilna halkuu ka bilaabay horumarku ka bilaabay maanta waa arka Djibouti waxa weeye meel kala qabsado ayay weeyeen waxa lagu soo qoray jaraa'idka qofka saaro doonayaa meel yar oo Djibouti ka mid ah أي بيرو تصور نيوزويك وعرمضة كلهم مريا وهوجاك waxaa sidoo kale halkaasi ka hadashay gudoomiyaha jaaliyadda Djibouti ee Soomaaliland Marwo Maryan Yuusuf uga mahad celisay dawladda Soomaaliland siday u soo dhaweysay walaalahooda reer Djibouti Gracias.
galaan ay dhalashadooda ay soo galandeen waxa weeyaan nasiib badinaye jaaliyadda hala iskeeno reer Jabuuti ay isu yimaadaan annagu waxaan u furnay jaaliyadda Somaliland iyo waxaa la yidhaahdaa Jabuuti xiriirkooda aan isku soo dhaweyno sidoo kalena qaar ka mid ah abwaanada halkaasi ka hadlay ayaa iskugu jiray waddanka Jabuuti iyo abwaano ka soo jeeda reer Somaliland aniguna Jabuuti dadka aan jaleecada jihadaha wada ka jirsan maaye jabaabka yiraahdo jihaad baa